ma aqbali lahayd haddii lagu siin lahaa malaayiin dollar, gawaari qaali ah, qasri aad u weyn, balse hal shardi, indhoole inaad noqoto? haddii aad nagu cusub tahay fadlan janaalka subscribe noo saar, haddii aad ka mid tahay asxaabtii hore noogu xirreedna like saar, sina share garee muuqaalka si uu u gaaro asxaab badan. waad mahadsantahay. waxaa jira nin milyuneer ahaa oo caruur oo dhan ka haystay hal wiil. wiilkaas waxa uu ahaa sida inuu ku nool yahay janno. wax walba uu dalbo waa uu heli jiray, wax walba oo naftiisa ay doontana waa loo iibin jiray. waxa uu ku jiray janno adduun. waxay sidaa ahaataba sanado badan kadib wiilkii waa uu weynaaday oo 21 jir ayuu noqday. waa da'da dhalinyaranimada, waa da'da uu qof walba rajeeyo. waa sababta uu Du Wongjang ugu magacaabay shirkadiisa ganacsi Forever 21 oo ka dhigan ilaa ay abad 21 jir ama weligaaba ahaw 21 jir. wiilkan waxa uu lahaa diyaarad qaasa, qasri sida qasriyada boqortooyada oo kale ah. intaas waxa u dheeraa gawaari qaali ah sida Lamborghini, Ferrari, Mercedes, Bugatti iyo BMW. nooc walba oo gaari qaali ah oo maanta maskaxdaada ku soo dhici kara, kuwaas oo lagu qadaro qiimahooda malaayiin dollar. sidoo kale waxaa intaas u weheliyay markab ama doon raaxo oo qiimaheeda gaarayo 100 milyan oo dollar. laakiin markii uu ku sii dhawaaday dhammaadkii da'da 21ka, waxa uu bilaabay in uu dareemo xanuun mar walba inta aanu jiifsan nus saac ka hor ku yimaada oo uu inta badan ka dareemi jiray madaxa iyo indhaha. ma ogeyn meesha uu ka imaanayo iyo waxa sababaya xanuunkaas. wuxuu sidaa ahaa bil kadib waxa uu go'aansaday in uu dhakhtar tago, ogaadana dhibaatada meesha ka imaanaydo iyo waxa sababaya xanuunkan. markii uu dhakhtarkii tagay, baaritaanana lagu sameeyay, waxaa soo baxday in aanu waxna qabin. baaritaanadii dhan waxay noqdeen kuwa tilmaamaya inuu fiican yahay. wuxuu tagay dhakhtar kale, baaritaano kale ayaa lagu sameeyay, natiijaduna sidii hore oo kale ayay noqotay. dhakhtarkii labaad isagana waa uu soo saari kari waayay meesha uu xanuunkan asalkiisa yahay. kadib wiilkii milyuneerka ahaa wax uu go'aansaday in uu u safro waddanka dibaddiisa uuna booqdo dhakhaatiir ajaanib ah. run ahaantii waana uu sameeyey. wax uu booqday 50 dhakhtar daafaha dunida ama waddano kala duwan uu ku booqday, balse xitaa hal ka mid ah maanu garan waxa ka qaldan wiilkan dhalinta yar iyo dhibaatada haysata iyo sababta uu xanuunkan ugu dareemayo madaxa iyo indhaha mar walba nus saac ka hor inta aanu seexan. subaxa ka mid ah wiilkii wax uu ka soo toosay hurdada, laakiin subaxa way ka gadisneed oo ma aysan ahayn subax caadi ah. ma ahayn subax ay jirtay ilayska quruxda badan ee cadceedu leedahay aroortii hore, ee waxa ay ahayd subax u mugdiya wiilkan dhalinta yar ee milyuneerka ah. waxa uu noqday camoole. waxa uu bixiyay malaayiin dollar isagoo u safray dalal fara badan oo daafaha dunida si uu u helo dhakhtar aragiisa u soo celiyo ama ugu yaraan qayb aragiisa ka mid ah xitaa u soo celiya. laakiin ma aynan suuragelin in ay taas dhacdo oo aragiisa loo soo celiyo, ee xitaa waxa la garan waayay halka ay ka timid ama asalkeedu yahay dhibaatada keentay in uu noqdo camoole ama aragiisa uu waayo. hooyadiis, aabihiis, asxaabtiisa iyo dhammaan reerkiisa aad ayay ugu naxeen arrintan, waxayna ku noqotay naxdin, qaracan iyo murugo in wiilkan dhalinta yar aanu dib dambe wax u arki doonin. waxaase kasii murugo badnayd in uu haysto hanti aanay haysan dowlado dhan. haddana sidaas oo ay tahay, hantidiisa waxba uma qaban karto. hantidiisa badan waxa uu ku waayay xitaa hal ilbiriqsi in uu wax ku arko, ama hal ilbiriqsi xataa in uu wax ugu arko dib dambe. wuxuu intaas kadib gartay in aanu dib dambe u arki doonin wejigii hooyadiis, iyo in aanu dib dambe u arki doonin ama aanu u awoodi doonin in uu wada gawaaridiisii qaaliga ahayd ama laashtiisii iyo doontiisii raaxada. wuxuuna garowsaday in maalmihii iyo habeenadii quruxda badnaa oo waqti banaanka kula soo qaadan jiray iyo cawasyadii quruxda badnaa ee uu la soo cabeyn jiray asxaabtiisa ay dhammaatay. intaa kadibna uu ku noolaan doono mugdi oo dharaar iyo habeen uma kala socnaan doonto. bal hadda aynu dhahno adduunkan oo dhan waxaa jira hal dhakhtar oo keliya awoodana inuu u soo celiyo aragiisa si aanu garanayn qof kale. dhakhtarkan waa qofka keliya ee haaya sirta aragga wiilkaas milyuneerka ah lagu soo celin karo. haddii uu u tago dhakhtarkan wiilkaas milyuneerka ah una soo bandhigo heshiis ah, waxaan kuu soo celin doonaa araggaaga, taas beddelkeedana waxaad isiinaydaa wax walbo aad leedahay ama hantidaada oo dhan. wiilkan hantiilaha ah ma aqbali lahaa mise waa uu diidi lahaa? maxay kula tahay adiga? ma wax uu raali ku ahaan lahaa in uu ahaado indhoole hantiila ah, mise wax uu aqbali lahaa in aragiisa uu dib u helo, noloshiisana uu ku raaxaysto oo u noolaado sida qof caadi ah, taas beddelkeedana uu isaga tago wixii hanti uu lahaa? maalin walba ayaad hurdada ka toostaa adigoo haysto waxyaabo badan oo aanay gooyin hanti ama aadan ku iibsan karin, xitaa haddii aad haysato buuro dhayman ah, laakiin ma dareemaysid, mana dareensanid qiimaha ay leeyihiin. haddii aad rabto
inaad hubido waxa aan kuu sheegayo kaliya samee tijaabadan fudud oo isku day inaad hal maalin oo kaliya noolaato adigoo indhe xiran yacni u noolow sida inaad tahay qof camoole ah 24 saac oo kaliya halkaas ayaad ka garan doontaa run ahaantii mana ahan wax sahlan inaad 24 saac aad u noolaato sida camoole marar badan waxaan aqrinaa aayado quraana laakiin waan dul marnaa un fahan la'aan iyo tadabbur la'aan aayadahaas waxaa ka mid ah qowlkii eebe wa in tacuduu nicmatallahi laa tuxsuuha dhab ahaantii haddii aad si fiican u fikirtana waxaad xaqiiqsanaydaa in aadan tiri karin nimcooyinka uu rabbi nagu galaday goormuu qofku gartaa qiimaha nimcadaas uu haysto mataqaanaa waa markuu waayo markuu naftiisa la fariisto uu yidhaahdo waan socon jiray laakiin hadda ma awoodo oo jiis ayaan ahay ama waxbaan arki jiray maanta se camool ayaan ahay ama waxbaan maqri jiray laakiin maanta dhagool ayaan ahay waxaan ku weydiin oo naftaada si hoose ugu jawaab ma isweydiidaa maalin walba nimcooyinkan uu alle kugu manaystay mase dhahdaa ilaah ayaa mahad leh nimcadan aragga i siiyey alle ayaa mahad ku leh i siiyey gacmahan alle ayaa mahad iska leh oo i siiyey lugahan aan ku socdo in badan jawaabtu waxa ay noqon doontaa maya laakiin waa iska caadi arrinkan sababtoo ah waxaan u aragnaa waxyaabahan inay yihiin waxyaabo dabiici ah sababtoo ah shilin nooguma fadhiyaan mar walbana bani aadamka waxaa la qiimo weyn shayga ay hantida ku bixiyaan sidaas darteed maadaama aan la dhalanay abuurkan cajiibka ah ee quruxda badan maadaama aan la dhalanay inagoo leh gacmo indho iyo lugaba uma aragno waxyaabo qaali ah laakiin isla waqtiga aan weyno midkood ayaan waxaan dareemaynaa sida inay nagu dhacday briq ama musiibo inay nagu dhacday oo kale laga yaabay inaad isweydiinaydo oo aad isleedahay bal maxay tahay fikradda aad rabto inaad soo gaarsiido muxuu yahay gunaanadka hadalkaaga iyo hadafka videogan wax kale ma ahan ee kaliya waa inaad xusuusato aadna dhahdo mar walba alxamdulillaah alla ayaa mahad iska leh intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa videogeena maanta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddii aad nagu cusub tahay fadlan janaalka subscribe noo saar haddii aad ka mid tahay asxaabtii hore noogu xirreedna like saar siina share garee muuqaalka si uu u gaaro asxaab badan waad mahadsantahay